السلام عليكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you? الحمد لله، I'm good, alhamdulillah. How are you? ما شاء الله. أنا أصحابت وادي سلامة magacayga horta wuxuu yahay Ibrahim Ilyas Axmed. maantana waxaa oo live kula jira Soomaaliya Fleet. Come on. ما شاء الله ما waxaan شاء الله ogjeedaa kooxda hooseed waxaan ka tirsanahay qaranka Soomaaliya. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. kubadda cagta ee horseed waxay ku soo idlaatay barbardhac bilaa goolala oo labada kooxood ay ku kala baxeen, waxaana markaasi natiijadan ay ka dhigan tahay in horyaalku uu yahay mid weli u furan labada kooxoodba. sidoo kaleeto waxaana markaa tii badiso ama labadooda hadday badiyaan noqon doontaa in la ciyaaro ciyaar playoff oo labadan kooxood ay ciyaarayaan. cali cumar cali ayaa ila taagan, laacibka kooxda kubadda cagta ee markaasi muqdisho city club. cali soo dhaw bal ka waran dareenkaaga. والله دواب كسلا درينكي من سوق وكر أنا كل والبا دين الريال فينال بلوها إنك صورت هذا سكول المات جيم واي جيم فينال على سكول بعدين إلا لاست بسم الله. والله ciyaartii MCC it was game caadi oo noo ahaa kuwii geemamka kale wax ma nooga dugneen. Yeah. But it was a really game oo pressure badan qabo saarana Yeah. because teamkii badisaa horyaalka qaadaysay at that moment. Yeah. Wallahi we did all we can, we fight till the end and waxaan u qornay inaa oo baraaji kusoo baxnay. صح. والله قلنك horta wax badanaa ma isfahansaneen, wax badanaa naga khaldanaa, tacticskeena wuu noo shaqeyn waayo. صح. Marka we had to change the tactics that we had oo macalinka barayay for the whole week. Yeah. And kaasaa ku bedelna and then we took control of the game. Enough, definitely. The Well done. second half, yeah, we took the control. صح. We dominating the second half. Haddii oo both teams ay badiyaan صح. waxaa la caadaa play-off, all difference ma jiraa la dhahay. صح. So we're gonna play play-off which has eventually hadaa oo bareeja hataa galno possibility oo goor lagu caadayo صح. Final. Okay. final, like the final game. Yeah. And I was among the dadka oo la kale oo inaa ku jiray. Marka wallahi it was a good experience and then meesha marka la tegay ciyaartooyda isku badatay wax oo ilaahay noo qaray ahayd mana naqanin dadka oo mana lagu darin dadka oo xulka matalaya. Then we came back to Djibouti and it was a bad experience and it was also a good experience. صح. And dadkii isku aragti maaha moogtahay dadkii kala aragti waaye and then there was coach and then they decided inay saas dhacdo. marka sidii ay dhacday anagana xaafadda ka taageerayna Soomaaliya xaafadda ka taageerayna markii Oman u baxeen guul u rajeynayna. صح. wallahi but wiilasha si fiican u dheeleen aad iyo aadna u taageerayna waxayna u qornaan waa xilli صح. aragti maaha. أنا شخصيا هذا كهالو I was supposed to be there and I believe dad badan saas u fikirayeen but isku fikrad ma lahno. maamulkeena si kale u fikireen, macalinka si kale u fikireen, qof kasta si kale u kala fikireen. fahamtay marka ayaga si u fikireen la saxsaneed anakana waa ku qaadana waa ku raacnay. at the end of the day decision ka ayaga iskale anaka waxaa dhahno meesha ma ku bedeli karno. fahamtay صح. laakiin anida isla xaggalna waxaa ka mid ah كابتنك عبد العسانيو we became friends. صح.
Yunus, Sagar, Fad, dad oo isdhexgalnaa saaxiibo naqanaa jiro marka xagga tegay meesha isku baranay. صح But in terms of football ma isku imaanaynin, in terms of saaxiibanimo le iskala joogin hotelka meeshaas isku baranayn. صح ilaahay ka baryayna inay meeshan ka soo baxaan ciyaartooy oo wadanka matalo maartay oo xulku u dheelo oo hadda ka bacdi ana ciyaartooy dibadda la keen oo diaspora wadanka matalo markasta waxa xaq u leh maartay ninka wadanka jooga ciyaaraya inuu dheelo. Wallahi billahi, and there's no any really and under 20 Kenya so daily and 23 so daily, and I have never seen that kind of thing. And Benoniga waxa way, as long as the best is representing you qaf oo ugu qatarsan weeda dalka jooga ama dibadda ka imaado qofka oo markaas u qalmo booskaas inuu dheelo. Ani markasta aaminsanahay, ani waxaan aaminsanahay maanta haduu oo qof uu joogo oo asaanyo boos ka baxsan karo صح oo dalka haduu joogo صح ولا بيعناها سانيو in la bixiyo. ها I'm not saying Asanya hala bixiyo. Asanya, you know, I mad respect for him. I'm just saying. of course Yeah, that's the example of Example. Asanya sahibkii waay marna walaalkii waay. صح Markii oo qof haduu oo ka fiican yahay meesha ba haduu dheelay. ودي It's صح always good as long as kulligeena waxa u dagaaltamayna dalka waay. Kulligeena meesha waxa u joogna dalka waay. Marka dalka hadee oo horumar gaarta anaka dhan horumar gaar. That's what matters. ترتين نيل اللي قبل يا Well, no comment about that. No comment about that. Waxa oo gali kara ma aha. Waxa gali kara ma waxaas. But Musa is my captain. Anuu captain gareynaa marka gobolka Banaadir joogay. صح Captain-nimadana ma aha qofka ina oo meel dheer ka soo dheesha ma aha. Captain-nimada waxa waay who is born a leader yaa ku captain gareyn kara qofka markuu leader yahay, markuu uu dabacad fiican leeyahay, markuu uu ixtiraam fiican leeyahay. And I always respect Musa. Weligay madaxuu saaran yahay Musa ciyaalaha gobolka Banaadir dhanna saaxiibaana aan banaanka markaas ku hadalno waa sheekeysanaa. Hadda waxaan camal waa ka sheekeysanaa but off the camera. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هاي والله horta ciyaalka waxaa la talin lahaa banooniga horta lugaha iyo bisma laga dheelo. Banooniga mentality waaye. Because waxaa arkaysaa ciyaal oo hadda soo baxayaan camal oo waqtigooda iyo banooni soo geliyeen oo they keep working hard oo banooniga they sleep eat cuntada markay cunaan banooni waa markay jiifanayaan banooni ay ka dhan banooni ay ku qorshaansan. Marka waxaa arki kartaa macallin oo kooxda ay ku dheelayaan camal macallina joogo macallinkana ma ku favor gareena ama ma ku dhilsiinayo marka og tahay ina oo u qalantid meesha. Marka ha ka fikirin macallinkan goormuu dhilsiina goormuu oo macallinkan ma ii jeedo macallinkan saan waa banooniga ha ka niyad jabin. Inta waxaa samayn lahayd markii lagu fadhiisiyo positive u qaado si oo wanaagsan ugu fikir macallinku uu fadhiisay wax oo kala ama iga damacsan yahay ama se inuu oo wax baro meelal qaar iga khaldan soo fiirina
go train harder si almitay waxaaga sii samayso maalintii oo macalinka uu ku siiyo nafaas garoonka soo gashid maalintaas waa maalinta laga rabo ina macalinka iyo dadweynaha dhan oo ku fiirsanayaan aad tusisid ina u qalantid ina meeshaas ku jirtid aana dheeshid صح ma fahanta so aan waxaa la dhiirigelin lahaa always wixii dhacobo weligaa dreamkaaga ha kasoo jeesanin dadaa jiraan oo dreamka ay kaa celinayaan saaxiibaa jira oo ku ogoleen markaa sii socotid dhulku kuu soo jiidayaan marka saaxiibahaas iska reeb wixii dhan oo dreamkaaga kaa celinayo haddaa habeenkii camal aa waqti dambe gaartid iska jar wixii oo gadaal kuu soo celinayo dhan iska jar maalinka eeda waxaa arkaysaa inaa oo aa horumartid aa meesha ku rajeynaysa inaa gaartid صح ciyaar ay u soo daawasho tageen ku dhawaad 60,000 in ka badan oo taageerayaal ah ayuu ka dhex soomay Sharmaake oo ah taageere qarsan waayay jacaylka uu qabo Ibrahim Ilyas oo kamid ah xidigaha kooxda kubadda cagta ee Horseed. Sharmaake ayaa noqday shakhsigii ugu horeeyay gudaha u soo gala garoomada waaweyn ee Soomaaliya si uu taageeridiisa ugu muujiyo ciyaareenka uu aad ku jecel yahay sidoo kale inuu taageero. والله ninkaas aad u jeclahay aadan u taageeraa waana la dhashay nin walaalkayga waaye marka banoonigiisana waa nin aad iyo aad u taageero Ibrahim Ilyas ayaa markay soo laatay ciyaarta la kulmay Sharmaake oo naftiisa isaga dartiisa lista u galiyay wuxuuna ugu mahadceliyay jacaylka uu qabo wuxuuna kaloo ka balan qaaday inuu la noqon doono saaxiib dhow mar walba uu la socon doono aad ugu mahadcelinayo waaye jacaylka oo maanta garoonka uu la soo booday shakhsi ahaan aad ugu mahadcelinaa intii uu gurigeena ka jecel oo la taageeraysana anaka hor team dhan aad ugu mahadcelinaa Sharmaake walaalkay waxa ku dhalay mahadsanid insha Allah geemka soo socdana maaliyad oo kulanka ku siin doona insha Allah Sharmaake ayaa noqday shakhsigii ugu horeeyay ku dhiirada iyadoo ay socoto ciyaar inuu gudaha u soo galo garoonka waana fal iyo dhacdo kaliya ay ku koomeed dibadda maantana Soomaaliya gaar ahaan garoonka Stadium Muqdisho wallahi sheekadaas it was sheeka ka naxay waaye cause ma filanaynin qof inuu garoonka ku soo boodi doono cause at that time Banonia soo doontay ahead Banonia soo doontay I was focused on the field marka waxaa arkay qof ay qabtay waayo qof dhinacan ma iga dambeeynin because inta Banonia soo baasay labada gees iska fiiriyay no one was there صح Banonia markii aa baastay qof leh ugu dhigay markaa fiiriya soo jeesteen kaamirada hortii taalo sawirka si fiican aad u aragtay hataa I wasn't ready for the photo uu boobsiyay askarkii aa wadabo markaa it was wallahi dareen oo laba filaan ahayd I wasn't expecting that to happen صح taageerayaasheena Horseed Vivo Horseed caawi maalin garoonka noo soo buuxiyeen qaar ciyaartooydeena jiro oo weli pressurekaas u baraneen alhamdulillah it was a good experience and ani ahaan shakhsi ahaan always want teamkayga inay raayaan and this is my first year with Horseed and we are apparently somewhere close and wallahi I really want to win the league and be part of the history. صح ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله I've been having a good relationship with Malik Abdul Hamid, and so far he's the better coach I've seen of Somalia, and this is my first time playing the Somali Premier League. He has this kind of way of teaching people his way of play.
he is very ambitious of the way he wants to play. He is very straight the way he wants to play. Marka haddaa oo ciyaartooy tahay hadeen macalinkaas camal uu kusoo maro uu ku aaminsan yahay oo wixii suura uu kugu sheegayo horumar waa gaaraysaa. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. اوكي historygaaga naga sheekee kubadda xagee ku bilaabday tiimyaasha oo ciyaartay xagaasa galno. Wallahi horta banooniga muddo hadda oo dhow ma bilaabin. Banooniga waxaa bilaabay mar hore waxaan ku bilaabay Nairobi ku bilaabay banoonigayga Nairobi ku dheelay. First of all waxaa u dheeli jiray ciyaal xaafadeed koox oo Sharp FC la dhahayo. Sharp FC. Yeah, sorry. oo Soomaalida iska leh. Ku dheelay markaa dheelay Sharp dheelay waa ka soo baxay waxaa aaday school team oo dheelay. Meesha wax ka baranay oo dheelay markaa u dheelay waa ka tagay waxaa aaday PST ciyaal xaafadeed waa asigana. PST ciyaal xaafadeed waa oo ku Pangani ku dheelaan. waxaa ku dheelay kaas oo dheelay jiray waa ka soo tagay waxaa tagay waxaan la dhahaa Kibera United koox la dhahayo. Kibera United dheelay Kibera United almost waxaa lagu bilaabay under 14 saa lagu bilaabay the first season I tagay. So within the first season waxaa aaday maxaa la dhahaa within the first season senior team again. So after the senior team meesha waxaa ku helay maxaa la dhahaa waxaa ku helay exposure fiican ku helay. Exposure markaa ku helay waxay soo doonatay junior team oo Sofapaka oo Premier League ka dheelaan. team koox Premier League ka dheelaan junior kooda and 20 kooda ay soo dalbadeen. That was in 2016. 2016 ما شاء الله. 2016 ka meesha ka dheelay. I played for almost 4 months عملوا dheelay. So 4 months au dheelay waxaa tagay maxaa la dhahaa senior team lagu promote garay. Sofapaka senior team galeen 2017. Within the same year waxay soo dalbatay waxay soo dalbatay one of the giant teams in Kenya, the FC Leopards. I soo dalbatay FC Leopards at I played for the whole season there. 2017 كده 2018 كان Wazito or Premier League daily so alone ku tagay because of the playing time. زائد أو يرى playing time بدن ما ديلي جيرة مركا Wazito اللي playing time سأقول هلو Wazito اللي playing time ما ديلي. How many teams also عيارتي بسم الله الرحمن الرحيم. I've played. I've been in this game. And how daily Wazito Adelaide. After Wazito, that's when playing time badana Helemanto then Adelaide game in game out week in week out Adelaide. And then Haligawa national team under 20 for the Kenya national team.
played, and then I played the under 23s as well. Yeah. After that waxaa tegay Thika tegay koox la dhahayo Thika markaa kasoo baxay waxay 2020 and I came to maamul goboleednimada imaaday gobolka Banaadir oo dheelay 2020 at December ahead and markaa u dheelay gobolka Banaadir after markaa ku guuleysanay kooxda oo xoog dalka u soo galay Horseed. It's been 37 years and we have not won any league and we are so close by winning now. Haddana we can't let it down. We can't let it go. Sanka ku haysanaa mar dhowna xariijinayna inaan qaadano inshallah. We keep fighting, we keep training hard, and we keep preparing for the games that are coming inshallah. Hey,